waxaan oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeyso waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umure leedahay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sahlo Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaad uu xifdiyo inta awlaad doonkaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaad baariha siiyo inta gurdoonkaana Ilaahay gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan heebaha siiyo qof walbo leegta ku qabta dambigiisa waliba dambiga waalidkiisa heebaha dhaafo si degdegan Ilaahay subhanahu wa ta'ala فرج غير قبل إلهي هوفرو إذا ما أنتين بوقالك الليك تكو قبطة أنت حنوصلنا إلهي حنونك هكذا القاضو عافمانها وقبدلو لما أنتين إلهي بلا يدي شرطة أيدين هرير مرية لما أنتين با ليك تكو قبطة حاسدك وحن لنا هي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحاكودا بين يهوك إقصارات دقدقة محايا لي حاسدك ملها فائدو ربي سبحانه وتعالى أنا مجعل حاسدك إيه ليك طلعك ميه كو قبل ليك تعداد ديدنا حاسدي وحن كلنا إلهي سبحانه وتعالى هو يقصار دقدقها كجوريدو وعن أجد دونا كينيا يكبحيست هذا صوماليا هدو الله ود له وسامحه يقابك إذا ماذا كينيا صوماليا يكسو قلني لبعتها صوماليا يكجستين أنت يكسو ناين جدها صوماليا إذا ماذا كينيا وعلى قلت الماما إلى كم ذهين إذا ماذا أقفل السنة أدونك لكن ملاحظة ضوا قوات أكبر بدن إسلام مركانا إسكود ياين الدفران الجريتانك يقولي بقرن ماذا صوماليا وعايز صيدا كلام ملاحظة الدولة كينيا إذا معاني ku qaataan qayb kamida badda Soomaaliya taasoo dacwadeeda hadda ay taalo maxkamadda dambiyada dagaalka ee Hague ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya waxay soo galeen sanadii 2011 bishii October ayadoona si sharci darraha ugu soo gudbay xadbeenaadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan waxaana xilligaasi dawladda kumeergaarka madaxweyne ka ahaa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxaana xilligaasi madaxweynihii waqtigaasi Soomaaliya uu sheegay in ciidamada Kenya ay ku soo galeen sifa sharci darra walow isla waqtigaasi ay ra'iisul wasaarihii xilligaasi sidoo kale wasiirkii difaaca ay sheegeen inay ka warqabaan soo galista ciidamada Kenya waxaana soo galistooda markii dambe lagu dhameeyay markay galeen madaxda urur goboleedka IGAD iyo kan midowga Afrika qaab xaalu mastuur ah ayadoona laga mid dhigay ciidamada Kenya in ay ka mid noqdaan ama loo ogolaaday in ay ka mid noqdaan ciidamada midowga Afrika laakiin ma u dhaqmayaan sida ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya oo badankooda ay joogaan magaalada caasimadda ee Muqdisho dad badan ayaa qaba in ciidamada Kenya ay ka bedelan yihiin ciidamada Uganda Burundi iyo kuwa kale jooga Soomaaliya walow markii la eego ciidamada shisheeye dhammaantoodaba aysan ahayn wax dan ah laakiin Kenya waxay si cad ay oo mutaxan ay u dafiraysaa jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliya ayadoona ay doonaysa in Soomaaliya waxay doonto ay ka samayso 2011 soo galistooda Soomaaliya wixii ka dambeeyay waxay Soomaaliya ay ka geysteen xasuuq wadareed ayadoona isla markaasi duqeymo u geysanayay dad shacab ah oo u badan xoolo dhaqato iyo shirkado isgaarsiineed oo muddo dhowr mar ah ay ku weerareen deegaanada Jubbooyinka iyo Gado waxaase jirin cid arintaasi kula xisaabtamaysa inkastoo dawladda hadda jirta dhowr mar ay soo saartay war saxaafadeed ay ku cambaareynayso weerar ciidamada Kenya ay u geysteen shirkadda ugu weyn xagga isgaarsiinta Soomaaliya Hormuud taas oo weerarkaas oo ahaa weerar aysan u meeldayn Kenya mase aha hal mar laba mar iyo saddex mar waxaana weerarada ay u geystaan waqti walba ciidamada Kenya diyaaradahooda shirkadaha isgaarsiinta iyo waliba dadka shacabka mana kala soocaan al-shabaab iyo shacabka laakiin waxa inta ay ku mashquulsan yihiin Kismaayo iyo waliba deegaanada Jubbooyinka ay ka joogaan Igado dagaalyahanada al-shabaab gudaha Kenya ay ka fuliyaan weerar joogto ah taas oo qasabtay in macallimiintii Kenyaanka ahaa ee iskuulada ka dhigay deegaanada ama gobolada Soomaalida ee deegaan ee Kenya ay haysato gabi ahaanba inay ka baxaan isla markaana ay ka qulqulaan goboladaasi cabsi jirta aawadeeda waxaana dagaalyahanada al-shabaab ay soo afduubteen ajaanib badan kuwaas oo ku sugnaa xirooyinka xirooyinka qaxootiga ee Soomaalida ee Kenya ay haysato iyo sidoo kale gudaha dalka Kenya waxayna weeraro ay ka geystaan deegaano iyo waliba gobollo ka tirsan gudaha Kenya waxayna hor istaageen waddo tareen ah oo Shiinaha uu dhisayay taas oo maraysa magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa isku xiraysa waxaana sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab gudaha Kenya ay ka fuliyeen weeraro si weyn ay ula yaabeen ciidamada Kenya waxaana taas ugu wacan haladaamada iyo dhibaatada ay ku hayaan gudaha Soomaaliya ciidamada
kenya waxay haysataa magaalada kismaayo ee xarun goboleedka jubbada hoose waxayse axmed madoobe ay siisay awood ku aadan in dowladda soomaaliya warkeeda uusan maqlin asoo isla markaasi gagoys haysta dowladda kenya gaar ahaan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ama gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ninka lagu magacaabo aadan barre ducaale oo si cad u sheegay in uu yahay qof kenyaan ah mar walbana badda kenya iyo soomaaliya isku haystaan ay leedahay kenya waxaana aadan barre ducaale iyo axmed madoobe dad badan ay ku safeeyaan inay yihiin dad isku caqli ah waxaana magaalada kismaayo dhaqaalaha ugu badan ay ka soo gala degada magaalada qaata ciidamada kenya ila xogagaal ah ayaa shaaciyay in 60% dhaqaalaha ka soo baxa degada magaalada kismaayo ay qaataan saraakiisha ciidamada kenya ee ku sugan gudaha magaalada kismaayo waxayse kenya ee hor istaagtay in dowladda soomaaliya ay ka arrimiso magaalada kismaayo isla markaana xubnaha dowladda ay aadaan magaalada kismaayo ma aha waxa hor istaagay axmed madoobe iyo ciidan uu leeyahay laakiin waa ciidamada kenya oo soomaaliya siday sheegeen u jooga ciidamo inay yihiin ciidamo nabad ilaalineed oo soomaaliya amnigeeda sugaya laakiin waxay burburinayaan qarannimadii soomaaliya waxayna dafirayaan jiritaankii ummadda soomaaliyeed taas oo keentay in dhammaan ummadda soomaaliyeed ay ka xanaaqaan ciidamada kenya iyo weliba joogistooda soomaaliya waxaa lagu eedeeyaa ciidamada kenya inay ka geystaan deegaanada jubbooyinka iyo gado kufsi ayadoona aysan u meeladayeen dadka birmageedada ah waxaana ciidamada kenya ay laayaan dadka shacabka waxaana halkii la rabay inay ka beegsadaan dagaalyahanada al-shabaab ay si joogto ah u weeraraan dadka shacabka taas oo keentay in ummadda Soomaaliyeed iyo waliba dawladda federaalka inay si weyn ay ugu xanaaqaan ciidamada Kenya ayaa hadda waxa ay ku qasban tahay inay ka baxdo Soomaaliya waxaana dhawaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay khudbad xasaasi ah ka horjeediyay wakiilka qaramada midoobay u fadhiya magaalada New York Mr. Awukar kaas oo sheegay in qodobka 35aad ay adeegsan doonto dawladda Soomaaliya sababo uu ku sheegay fargelinta qaawan ee ku haysa Kenya gudaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dhankiisa telefishinka Universal uu ka sheegay si cadna u sheegay in Kenya marnaba aan laga aqbalaynin fargelinta ay ku haysa jubbooyinka wuxuuna ku eedeeyay hogaamiyaha xoogga ku haysta magaalada Kismaayo Kenyaan kale ee ilaaliyaan Axmed Madoobe in uu ka jecel yahay in Kismaayo laga maamulo Muqdisho in laga maamulo magaalada Nairobi taasna aysan aqbalaynin dadka iyo waliba dawladda Soomaaliyeed boqolkiiba 98 dadka Soomaaliyeed waxay ku taageereen Farmaajo go'aanka geesinimada ee uu ka qaatay Kenya oo markii horeba Soomaaliya ku soo gashay si sharci darro ah haddana ku joogta sharci darro maanta wargeyska ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka Kenya Daily Nation ayaa bogiisa hore wuxuu ku daawacay in dawladda Kenya ay qorsheynayso inay ka baxaan guud ahaan Soomaaliya wuxuuna warkaasi ka soo xigtay sargaal uu wareysto sargaal saro ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayuu ka wareystay arintaasi kaas oo sheegay in ay qorsheynayaan Kenya in gabi ahaanba ka hor 2021 inay ka huleelaan Soomaaliya waxaana arintaasi uu sheegay sargaalkaasi ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Kenya in arintaasi ay ka dalbadeen golaha midowga Afrika isla markaana wali uu socdo wada hadalka dhankoodana ay ka go'an tahay inay ka baxaan gudaha Soomaaliya waxaana qubarada xagga ammaanka iyo waliba dadka u dhunduleela arimaha amisom ee Soomaaliya jooga waxay sheegayaan in arintaasi Kenya ay ka dhiganayso marmarsiyo laakiin uu jiro cadaadis golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay saareen iyo sidoo kale madaxda midowga Afrika oo ku aadan in ciidamada Kenya ay ka baxaan gudaha Soomaaliya kadib dacwado isdaba joog ah oo dawladda Soomaaliya ay ka dirtay dawladda Kenya taas oo hadda dawladda Soomaaliya u aragta in magaalada Kismaayo ay ku haysato xoog ka bixista ciidamada Kenya iyo waliba warkan uu soo qoray wargeyska Daily Nation wuxuu imaanayaa xilli ciidamada Kenya iyo waliba kuwa Soomaalida maalin ka hor ay maalmo ka hor ay isku dabsaareen deegaano xad ka dhaca waxaana taas keentay in ciidamada Kenya dhagaha laga dhufto kadib markay isbaysteen shacabka ku dhaqan gobolka Gado iyo waliba ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana taas keentay in ciidamada Kenya gabi ahaanba ay agaha wax ay ka dayaan xaaladda Axmed Madoobe ayaa loo baqayaa mar haddii ciidamada Kenya hadda ay isku diyaarinaysa inay ka baxdo guud ahaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada hadda ay joogto Soomaaliya ee ka haysato sida deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo waliba qaybo yar oo ka mid ah gobolka Gado
laakiin waxaa hubaala in dabaadyada soo socday weliba muddooyinka dhow in ciidamada Kenya ay ka holeeli doonaan gabi ahaanba Soomaaliya ayagoo isla markaasi u hoggaansamaya cadaadiska golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu saaray dowladda Kenya oo ku aadan in Soomaaliya ay ka baxaan ciidamada midowga Afrika waxaana la diyaarinayaa ciidamadii lagu bedeli lahaa ciidamada Kenya boosaska ee baneeyaan ee ka tirsan deegaanada Jubbooyinka iyo weliba Gado waxaana dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay isticmaalayaan hashtagyo lagu diidan yahay joogitaanka ciidamada Kenya kuwaas oo dadka Soomaaliyeed ay u arkaan inay yihiin cadow ku soo duulay Soomaaliya rabana inay dafiraan jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliya dadka Soomaaliyeed qaarkood ayaa waxa iskaga qaldan mucaaradnimada iyo sidoo kale ilaalinta jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed Kenya waxay si cad u diidan tahay una dafiraysaa in Soomaaliya ay tahay qaran jira taas oo ku muujinaysa haddii mar dawladda Soomaaliya loo diiday in Kismaayo ay aado Kenya arintaasi ay ka shaqeynayso waxa meesha ka cad Kenya in marna aysan raali ka ahayn Soomaaliya inay qaran jira ay noqoto dhamaantiin ba Ilaahay aadin xifdiyo Ilaahay umuuraha leedina sahlo Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umurul muslimiina kullaha sahla Ilaahu ummadda Soomaaliyeed miday oo Ilaahu qulubta shacabka Soomaaliyeed Ilaahu isku keen cadowga ummadda Soomaaliyeed Ilaahu jibi إله أمد الصومالي أنت عدو كوا إله كقبو يا الله إله أنت عدو صومالي كوا إله كقبو إله أنت حنوصن حنونك كدر القاب وعافمات وجبد الإله لما أنت بينو جرجار وفرج غير قبل إله ونوفر إله كلمة ذي جرجار كان كودي سنة يا الله إله أولاد إنه حفظ أنت أولاد دونك إله أولاد باري أسي وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.